waxaad ka faa'iidaystaa 8 daqiiqo insha Allah inaad ku soo jeedisid fikirkaaga bulshada oo noqonayo oo sida ugu qancin kartid ganacsatada maalgashatada halka fadhida inta kale waxaad markaa u gudbi doonaa markaad bishinta 10 daqiiqo ka dhameystirtid su'aalihii ay qabeen guddigu ay ku weydiin doonaan insha Allah hadii la yiraahdo aad baad u mahadsantahay adigoo magacaaga saddexan ku bilaabaya waad bilaaban kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Qaasim Sheekh Aadan Ibraahim قاسم شيخ آدن مقعي وحالي هذا قاسم شيخ آدن إبراهيم oo ka qayb qaadanaya business plan competition ka ay qabatay shaqadoon iyo kiimis waxaan soo jeedin doonaa business plan-kayga oo faahfaahsan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa kiimis iyo shaqadoon oo ii saamaxay inaan soo gudbiyo business idea-da aan haysto maanta oo aan taaganahay final stage-kii ugu dambeeyay ama marxaladdii ugu dambeysay sida ka muuqata loogadeena waxaan business plan-kan wuxuu ku saabsan yahay Muqdisho Poultry Farm oo ah company ka shaqeyn doona wax soo saarka digaaga iyo ukunta marka aan bilaabeynay research-ga ugu horeeyay waxaan ka soo ogaanay inay magaalada ka jirto baahi badan oo ah in ukunta iyo digaaga ay u baahan tahay magaalada isla markaana ay gaab badan uu ka jiro markii aan research-ga sameynay waxaan isticmaalnay questionnaire aan ka soo collect gareynay dadka isticmaala egg and chickenka conceptionka dadka isticmaala waxaan ka soo questionnaire aan ka soo qaadnay marka waxa ku arki doontaan target market-keena aan select gareynay ayaan ku arki doonaa questionnaire-ka sida ka muuqata slide-ka waxaan sameyn doonaa farm weyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo digaaga si ay u sahlnaato egg production-ka main target-ka aan sameyn doono wuxuu yahay egg production-ka second target-ka aan sameyn doono wuxuu yahay chicken production-ka bismillah وما صنتها برستيج كذا قرحة ضالة أنا كأجمع ما أدعي برامجك برامج مهمة إن سؤال شكوات برامج كان ما أهم مثل صومالي أذوي قال ده كان الدجاج ما استعمالان هذا استعمالان مثل كأوريجين كصومالي ده اللي هذا استعمالان هذا كان مثل هذا عوض كله ومثل كي عملنا معمل كذا صح؟ لوكال هذا لكن exactly ما دجاج ما هي على قديسة سمينا فام بعرفني أساسا هاي جيكنكي waxaan u sameeynaa xarun aan ku xanaaneyno kadib waxaan u sameeynaa qoodintii ayaga number badan isticmaalayna oo aad u tiro badan oo marka origin ka mid ka isticmaalaysaan resource midka origin ka aragtaan isticmaashaan Soomaaliya hadii si ashaygiisa loo isticmaalo dhamaana resource aad u yar ma badno maya waxaan sameeynaa egg incubator qalab la yiraahdo oo lagu soo saaro jiilka yar ee digaaga markiiba waxaan soo saari karnaa per month 5,000 ilaa inta u dhaxaysa 4,000 okay oo jiil cusub ah aad baad mahadsantahay Qaasim su'aal baan ku weydiin lahaa marka lagu jiro poultry-gan iyo digaaga xanaaneyntiisa way waxa weeyaan uu risk badan yahay waxa weeyaan hal mar oo maskan caadiga soo gala meesha ayuu konton xabo idin ka layn karaa oo gabgooduba hal mar buu sareyn karaa marka waxaad ii sheegtaan waxaad yara sharaxdaa waa maxay strategy-ga risk mitigation-kiina iyo waxaad kaga hortagi doontaan iyo location-ka aad ka furaysaan yaase maalin walba chicken-kan u maydhaya dhaqaya xanaaneynaya ilaalinaya dadka noocaas oo kale iyo skill-kii leeyihiin ee ku saabsan waxan mid technical skills waa midna waa expert skills midka technical skills-ka waxaan rabnaa inaan u hire gareyno shaqaale sanitation-ka iyo nadaafadda ka shaqeeya oo daily wixii ka imaan lahaa environment-iga oo bacteria iyo virus aha ka nadiifiya oo ka sanity gareeya midda kale expert-iga u baahanna inaan veterinary doctor la kaashano waxyaabaha talaalka ay u baahan tahay iyo cudurrada ku imaan karo inaan dhakhtarkii la kaashano oo saa lagu daaweeyo midii sanitation-ka ahaydna inaan u sameyno shaqaale ama employee ka shaqeeya sanitation-ka birday cleaning-ka iyo nadaafaddii u qaabilsan ta location-kana location-ka waxaan ka furan doonaa magaalada Muqdisho meel area oo corner ah kee weeyaan ku cadda meesha walkee Odweyne okay haddii in case ay dhacdo cases-ka
ama xoorka baalkan la yidhaahdo ama masaska ama dabacday waxyaabahaas hadday sidaad uga hortegaysaan qaab noocee waxyaabahaas waxaan u samayn doonaa in buildingka aan ku xanaanaynayno ilaa 1 mitir inaan ka samayno dhagax after 1 mitirna aan shabaq gelino kadib aan sii saarno lamieri ama wax kale marka mid aan ka soo dusi karin bahalladii waxaas 1 mitir aan inaan u samayno dhagax ah Mr. Qasim waxaa ma soo sheegtay in halkii ukun baa la gedi karo 4,000 ila qiyaastii ilaa 3,500 soo hadda marka la fiirino waa afartaas kun ay ka joogtaa marka la fiiriyo competition badan oo iman kara marka adiga furtin wixii la arko dad badan iman karo ganacsiga kala Soomaa marka see oo tartan u gali kartay marka dadkaas kale oo jiro iyo suuqii hadda ay ka joogtaba 4 kun ay ka joogto ukuntii see wax ugu bedelaysa marka ukuntii noqon kartaa ukun lagu soo dhiirado dadka ay gataan mid koowaad waxaan rabnaa inaan noqono great supplier dadka hadda inta badan markaan soo sameynaynay researchiga waxaan soo ogaanay restaurantiyada iyo fast foodyada inay haween u keenaan marka annaga waxaan rabnaa inaan haweenkaas supplier u noqono ee annaga naga qaadaan amount aan u dhaafno ay ayagana kasii faa'iidaan marka annaga supplierkii aan noqonaynaa dadkaasna marketkii ay second hand u sii noqonayaan marka maadaama annaga supplier weyn aan nahay inaan boqolaala aan dhaafno 200 300 inaan ka jarno customerkeennii oo retailerka ahaa si asagana faa'iido uga sii helo oo 200 ilaa 300 gaari karta kharashkana soo dabateen ama businesskan ku kacay wax contribution ku leedin insaad ku leedin aad haysataan cash bad ku haysataan mise cash waxa ku qoran egg incubator incubator waxaad isticmaalaysaa inaad beedka ku dilaacsan miyaad haysataan cook oo diiqimi ah sida oo aan isticmaalay 10 times 1 cook cook xagaad ka keentay waa very lama helo ka gadan Soomaali wal ma laga weynayo wax la weynaa ma hadda miya suuq markaan aan production ka aan bilowno waxaan u estimate gareynaynaa inta amountiga aan ku furayno farmka 10kii digaagba hal diiq inaan raacino si uu ku fargareeyo productionka digaaga maxaad khibrad u leedahay ma sida hadda hore aan u soo sheegay experience-ga midka ka imaan kara sanitationka iyo midka ka imaan kara waxyaabaha la yiraahdo cudurrada u baahan dhakhtarnimo wixii dhakhtarnimo u baahan waxaan ka hayr gareynaynaa veterinary doctor wixii sanitation iyo management u baahanna waa wax aan ka qaadan karno training wixii su'aalo dambe insha Allah wixii hadad guulaysato insha Allah lagu soo xiriiri doonaa